Soomaalida waxay dhahdaa Islaan uunsan jirin hadday uunsato meel ay ka guban jirin ayay ka gubataa هذا waxaan maraynayaa Soomaaliya dad siyaasiyiin oo awal uunsan jirin ayaa hadda uunsanaya marka meelo badan laga gubanaya markii taariikhda la qoro historyga la qoro dowladda Kenya intay u qabatay Soomaaliya ilaa waqtigii burburka wadan u qabtay adduunka ma jiro dadkii qaxootiga soo dhaweeyay anaga ahay oo maanta ilaa maanta qaxootiga Soomaalida dadka magangeliyay oo gurigoodii labaad waa anaga aniga nilaahayo degmada diga soo doortay 143 arday oo jaamacad ayaa hal maalin lagu dilay ciidamadana maalin kasta meesha joogaan ku dhamaadaan ayagoo ummadda Soomaalida ilaalin ayagoo ummadda Kenya ilaalin hadda maanta Jubaland ay dadka nabad ay hesho Soomaaliya ay nabad noqoto annaka 1 minute ma sii joogayno Jubaland ciidamada Kenyana farta yaa loo fiiqay ciidamada Kenya waxay ku joogaan Soomaaliya magaca AMISOM ciidamada Kenya waa sidii ciidamada Ethiopia waa sidii ciidamada Burundi waa sidii ciidamada Djibouti marka la baxaa discrimination uu sameeyay magaalada Kismaayo oo qiimaha leh ciidamada Kenya ay qabteen markuu Mzee Haji waa wasiirka difaac marka walaalayaal nabad baa idin keenay waxaan rabnaa dowladda Jubaland dowladda Puntland dowladda Galmudug South West all the region in isku imaado iyo dowladda madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayo aan midnimo muujisiin inkoo mid ay Soomaalida Kenya ku faanayso inkoo mid ay Soomaalida Djibouti ku faanayso marka nimayo waa ugu noqonaa islaamtii uusan jirin oo uusatay oo meelo badan ka gubtay ugu noqonaa alenahay Jubaland ha noolaato Soomaaliya ha noolaato dowlad goboleedka meel jiraaba Soomaaliya ha noolaadaan madaxweyne islaam waxaan leenahay ilaahay ha ku xifdiyo 4 sano oo soo socota dowladda Kenya ay kula shaqeeyeen iyo dowladaha Uganda. Salaam alaykum.